حالي يوسف محمد waxaan ahay agaasimaha ama HIV coordinator Wajir County maanta waxaan meeshan kulan ku qabanay stakeholderska Wajir County oo hogaaminaya county commissioner iyo deputy governor iyo marti kale oo sharaf leh isku imaaday waxaa laga hadlaynaa waxa kamid ah GBV gender based violence iyo ku saabsan arrimaha HIV AIDS-ka markaan ka hadla xagga HIV AIDS ilaa iyo 3 sano soo dhaafnay waxa la istoosay ama statistics ama aragtida waxay noqotay in Wajir County HIV AIDS ay kor u socoto sanadkan soo dhaafnay ilaa iyo 82 qof ee HIV AIDS laga helay inkastoo ay badan tahay Wajir East ama Wajir Town ilaa iyo 60% laakiin tuulooyinka sidii Alas Tarbaj Wajir West Wajir North iyo Habasuna idin HIV oo jirta markan waxaan isku imaanay waxa si loo hortii kara ama lagu muujin kara dagaalka lagu jiro arrimaha HIV AIDS-ka markaan ko garab ka helayna dawladda dhinaca National AIDS Control Council iyo NASCOP qaybta county-ga uu hogaaminayo county commissioner iyo county governor ومثلا deputy governor يا waxay soo soo in dhaqaale loo raadiyo dhaqaale uu bixiyo laga dagaalanka iyo hortagga cudurka HIV AIDS mid ugu muhiimsan ay tahay hortagga HIV AIDS uu carruurta ugu dhicin bilcanta urka carruurtooda u gudbin yaa noo weyn Wajir hadda waxa lagu tilmaamay dadka HIV AIDS qabaan inay yihiin 1200 oo qof laakiin tan ognahay daawad qaata walaa 360 marka ilaa 900 kale oo maqan xaafada ku dhex jiraan qaar wala garna qaar lama garanayo marka qaar waxa is garanaya inay daawo qaataan aan rabin iyo qaar aan is ogeyn kuwan is ogeyn marka sidii lagu ogaan karo waxa way inay isbitaalka imaadaan oo isbaaraan hadda saan aragnay 40% kaliya ayaa isbaartay Wajir isma baaraan wali ku isbaar waxa u badan bilcanta ilaa klinika lagu baaraa meel kasto isbitaalku yaala oo bilcanta klinika waa la baaraa rag mar jecel inay isbaaraan hadda intaan aragnay 60% dadka HIV AIDS daawada qaataan waxa u badan bilcan ilaa iyo 360 daawada qaataan 250 waxa way haweenka rag ku yirahay laakiin ma aha HIV bilcanta ku dhaca kaligeed maaha haweenku ku dhaca kaligeed maaha waxa way ayka zaid u baaran waxa laga yaabaa rag dhan ay isbaaraan inay tirada inta ka badnaan lahayd laakiin tirada aan hayna haweenka u badan marka waxaan kula talinayaa Wajir si ragina soo baxan oo isbaaraan bismillaahir rahmaanir rahiim xalima daahira leedahay oo National AIDS Control Council aan u shaqeeyaa regional HIV coordinator baan ahay maanta shir baan ka lahayn inta Wajir Palace Hotel oo ku xisaabsanaya about GBV oo maaragtay xaaladaha idilo oo ka socda bariyahanito waa aragnaa oo gabdhaha la soo kufsanaayo iyo sababta maxay tahay iyo marka waxaan rabinaa iskaashanna anaga iyo reer Wajir sidee waxaan ku reduce gareyn karnaa sidee waxaan looga hortag looga sameyn karaa sidee gabdhahayna wiilashayna iyo community-gayna loo badbaadinayaa intaas baan rabnay aan kulanay county government kayna support badan aan ka helnay qaar lahaasi with the support from the governor the deputy governor about health heads of health kulli support masha Allah aan ka haysanaa marka xaaladahaas aan rabnay inaan maaragtay anaga stakeholders aan la dhahaa oo gender side gender services ka the director for gender services uba xataa weyn la jirtay marka arrimahan oo dhan aan rabnay inaan ka hortagno oo dhahana sidee waxaanayto maaragtay reer Wajir ahaan aan maaragtay aan u yareyn karnaa oo dadkayna aan ula shaqeynaa tahay maadaama tahay gobolka waqooyi bari ka saaran tahay waa sidee kororka cudurka AIDS cudurka HIV AIDS wali waana la jiraa according to statistics waxaana la dhahayaa cudurku waa maaragtay wuxuu tusay inay wali ay maaragtaan u wada hooseyno county-ha kale hadaan lagu fiiriyo bat ma aha wax yar oo yar dhib baan haystaa dadkayna badi ma soo baxaan isma baaraan hasa ahaan nimanka isma baaraan haweenka isbaaris ay baaris kama ah waxay ka wadaan maaragtay haweenka mar hospitaalka ay joogaan cunug xanuunsan bay keenayaan ayada xanuunsanaa imaane ayadoo uur laha imaane ayadoo ma aragti waxaas dhan ay imaadaa marka haweenka si fudud aan ku helnaa oo marba isbitaalka aan ku helnaa nimanka sidaan ku helna waa dhib ma imaadaan marba isbitaalka laga ma helo nimanka hadaan ka daba tagnana ma aragti ma wada helno soo waxaan ka codsanaynaa nimanka reer Wajir soo baxa kaaliya isbaarne waa oga cudurku waa nagu yar yahay ha ahaatee laakiin
kaali aan isbaarna aan ogaan status kayna waa sax status ka fiican oo maanta reer wajadahan aan ka hadlayn haweenka status kooda waa haysana national government hada aan waa haysana the good statistics from women laakiin statistics nagu yar waa keen nimanka waxaan ka codsanaynaa soo baxa hal isbaar aan is ogaan marka saasa jirta aad u maasan tahay takoorka baa inta badan Soomaalida ku badan maxaad ka dhigaysaa marka dhanka iyo takoorka lagu wado dadka qaba takoorka aad u badan yahay takoorka waa jiraa oo ruuxana cudurka qaba lama dhihi karo hadda currently weegan waxa socda ninka ugu horeeyay cudurkan lagu arkay many years ago almost 5 years ago ninka cudurka lagu arkay oo isu soo bixiyo cudurkan ay ugu dhaco daawada qaadanayo a lot of support cidiska helay ee hadda waa malaga un baa qabto ninka cudurka 35 years cudurka la noolaa so meaning doesn't mean cudurka maanta daa lagu hela isla markaa dhimanaysa laakiin takoorka waa wax dadka dilay hebel baa cudurku qaba hebel aan loo dhawaanin hebel alaabtaan qaban marka takoorkaasna walaalayaal aan ka hortagna hadda diinta ma ogolo diinta xageed ka maadli karo diinta waxa noo joogan sheekhiyaasha in dadka noo jooga laakiin takoorka inaan yareyno oo dadka ay soo bixiyaan oo dadka daawada ay qaataan cudurku waa la noolaan karaa inta soo sanadoo la noolaan karaa daawada hadda la qaato